بسم الله waxaan halkan markaa gelaynaa labada protocol ee ugu caansan ee engineering isticmaalayno aan isticmaalayna jeeda multipoint VPN-ka oo generic noqon doona iyo naga sub resolution protocol ayaan halkan rabnaa inaynu ku hoga tusaalayno ugu horeyn VPN-ka ama dynamic multipoint VPN is combining the following technologies soo socota ayuu isku combine gareynayaa koob wuxuu isku keenayaa multipoint generic waxa weeyaan protocol ay iska leedahay isaga kabaynaan hadal si gaar ah oo loogu talagalay inay laba site ku wada xiriiri karaan marka multipoint hadaynu raahno waxa weeyaan allowing point to multipoints for full mesh inay noqdaan laba point iyo wax ka badan inay si toos ah wada xiriiraan si full mesh u sameysmi karo waa generic multipoint marka joogno iyo naga sub resolution protocol oo protocol ka shaqeeya gibigiisu inuu isbaro beeriska brancheska ayuu isbaraya to get their information dynamically si information kooda ugu kala qaataan si aan joogto ahayn oo marka si dedicated ahayn laakiin dynamically oo isku soo dooranayaan marka labada hadda diga haysid saddex technology-ga saddexaad uu combine garaynayo dynamic multipoint VPN waxa weeyaan dynamic routing protocol iska naqaanay ha noqdo EIGRP ha noqdo RIP OSPF PGP intuu dooraba ha noqdee ayuu sidoo kale integrated lagaga dhigaya ama lagu soo dhaxtaraya oo maxaa looga baahan yahay koow kaasi muxuu qabtay inay branchesku dhexdooda isku xidhmaan kanina inay isbartaan laanan kana koonayaasha yaalaana inay soo wada xidhiidhaan waxa saacidaya wax loo yaqaano dynamic multipointiski aynu naqaanay ayaa saacidaya marka maxaynu isku keenay saddex shay waxaan isku keenay saddex shay baynu isku integrate garaynay si uu sameysmo tunnel oo ah koow tunnelka in la sameeyo lambar laba inay dynamically la isku bartaan oo naga sub resolution protocol ku qabanayo iyo lambar saddex inay labada laan ama laananka ku xiriirsan branchesku inay wada xiriiri karaan so generic baynu ku horeynayna generic haddaan maqalno multipoint generic-ga VPN-ka muxuu qabtaa waxaan leenahay tunnel can be half many endpoint wuxuu yeelan karaa tunnelku endpointyo badan tunnelkeenu waa kan tunnelkani tusaale ahaan labadoodan u dhexeeya kan labadan tunnel u dhexeeya kan labadan u dhexeeya tunnelka halka lagu soo maab garaynaya isagu waa mid laakiin endpoints buu yeelanayaa fara badan each endpoint markaa configured in generic or multi-generic ayaa lagu configure garaynaya marka haddii lagu configure gareeyo yaa haddaba tusaya oo u sheegaya branchkani inuu sketch-kuyuga la xidhiidho waxaa sameynaya protocolka loo yaqaano Negas Hub Resolution Protocol